Somaliland waa qaran weyn wallahu qaynuun iyo sharci loo qanu Afriqiya ku yaal waxaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland si ballaaran loogu xusay maalinta dhagaxtuurka dhalinyarada UFO oo sanad kasta bisha 22keeda guud ahaan laga xuso geyga Somaliland haddaba xusitaanka maalinta dhalinyarada UFO ayaa waxa lagu xusay beerta xuriyadda ee magaalada Hargeysa haddaba xusitaanka xafladani ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka tirsan xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi haddaba telefishinka caalamiga ee badda 24 TV ayaa waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday bulshadii xusayay maalinta dhagaxtuurka dhalinyarada UFO halkaas oo rayga ku cabireen isla markaasina sheegay inay tahay maalin ku weyn waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan ku weydiinayna adigu maanta waxaad kamid tahay dhalinyarada ka soo qayb gashay 20kii February bal ka waran maalintaasi aad maanta waxa ka soo qayb gashay xafladaasi dareen nooceeyo dareemaysa maanta wallahi dareenkaygu aad buu kacsan in kastoo aanan maalinta joogin laakiin wax badan way duubayeen oo waxaan waa wax badan way duubayeen oo ma la socdaa waalidiintii bay iga sheekay arintu say ahayd xaaladdu say u dhacdayna madaxayga ku duubantay laakiin waxaan dhalinyarada Somaliland la isku duubnaada kuwii niga horeeyay ba sida ahaa oo dalkooda iyagoo kaaraha kala hortagay dhagax idinko maanta jooga inaad qutal daruuri waxaan yar micna lahayn aad siistaan wadankiina oo aad baan uga xumahay damiirkiinu ha shaqeeyo yaan sida riyaha dhaameen leeynin limban leeyahay wadankiinu qarankiinu maanta quwad leeyahay intaasaan ku soo gabagabeynaa dareenkayguna aad buu kacsan yahay mahadsantiin dhamaantiin aad baan Umar Cabdullaahi sidaad sheegtay ama saynu ogsoonahay maanta taariikhda Somaliland waa maalin qaran oo ku beegan 20kii February maalinta 20ka February oo ku suntan runtii taariikhda Somaliland oo macnaheedu tahay maalintii calanka tawxiidku ku xardhay ee saddexda midaba cidii ugu horeysay helitaankiisa ee Ilaahay sabab uga dhigay ay ahayd dhalinyartii qalinka sideetay iyo buugaagta ee dreeska xidhnayd oo markaa ka dhiidhiyay تعدي يحد قدب كلا جولا كعي معلمين تودي يهجياشودي إسلام كان هالك كبل عوي هالجن كي قرارة كمان ككون حيري هو يومد بالله راح سوقي هل يجدو أي نفتر وعيان مانت إن بدنا نجمع العيد أو جوه سيسو أي مانت أي كسم تنتهي تاريخ راسوانا مالين قيمة له كلية درين كيجا مسوكو بكرة لكن وحن كعبر يا درين كيجا aniga oo guud ahaan ba shacabka reer Somaliland hambalyo u diray gaar ahaan dhalinyarta faraxsanahay dareenkayguna aad buu kacsan yahay lamana soo koobi karayo waxaan fariin halkan uga dirayaa dawladda madaxweynaha ka yahay in farmaajo waxaan leeyahay taad adigu maamusho ayada xorriyadeeda hayn kar laadahayo maalin walba qarax ka dhacaya oo maatida iyo agoonta iyo lagu leynaya Somaliland maanta waxba kaga ma qaadi kartid ina hadalaad halka soo turtiya tamar fashal looga talinaya waxaan marka Somaliland waxa kaaga baahantay ma jirto maanta iyada israacday iyada isku filan waxaan leeyahay farmaajo taadu ha ku deeqdo iyo qadaadweynta ka soo hadlaya xamarna waxaan leeyahay tiinu haydin deeqdo Somaliland maanta wax idin ka baahantahay ma jirto dareenkaygu waa dareen aad u fiican waxaan leeyahay in Somaliland waa guul farmaajahaas iyo waxa ka sheekeynaya anu doonmayno isku soo wada duubo bulshadani xusaya maalinta dhagaxtuurka dhalinyarada UFO ayaa sheegay inay tahay maalintani maalin taariikhiya isla markaasina aan ka guureyn maskaxdooda dhibaatooyinkii soo maray waa Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame yaala Ismaaciil telefishinka caalamiga ee badda 24 TV beerta xuriyadda ee magaalada Hargeysa